waxaan salaamaya dadka Soomaaliyeed ee halkan laga daawanaya maanta iyo baada saxaafadda oo aan isku yeelay saaka waxaan isugu yeelay inaan xoogaa cadayna ka bixiyo warar soo gaadhay oo oranaya wasaaradda maaliyadda iyo dowladda cashuurada ku fiirsan waxaan doonayaa inaan beeniyo arrintaas cashuurada ku fiirsan jirin horta marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ogaadaan cashuur la qaadana ma jiraan wax la kordhiyay ma jiraan dadka wadana marka hore cashuurta ma la kordhin cashuurada la iska bixinayo halkan sida ma ahade sani badan oo sheegana dadii Soomaaliyeed dadka wadana cashuurta bixin dawladdu ma jirayso wadana ma jirayo wadanku ku shaqeeyaa waxa weeye qaadaan dadku bixiyaan mala qaadaan baaba ka roonayna cashuurta waa nacay in qaadaan ilaa ka roon mala taas ay noo fiican qaadaan hadii la bixiyo qofkii la asmaayo Soomaa markii la iska bixin maayo Soomaa taas oo la casriyeeyay ba cashuur loo bixiyo oo la doonayo in dalka lagu miso waxaan idinka warramayaa cashuurta keliya ee macnale ee la bixiya maanta waa cashuurta customs ka leedahay ka soo gashay dekeda ya xarada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gawaarida wax yar laga qaado ayaro qala laga qaado mid wala meel ka daro futani shaqeeyaan mid wala meel ku daro meelii dawladda awdkiisa ma ku jiro iyo xiriirkiisa ma ku jiro ya anagu taa ku jira waxa loo baahan yahay cashuuraha intooda badan waa cashuurta la gadista waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaado ya Soomaaliya dadka waa ogyihiin dadka dibadda ka yimid waa ogyihiin adduunka koobsha ah hadii iibsato waxa yar baa la socda wax yar baa la socda labada dollar waxa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaas oo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqonayaan kana markii la isku geeyo ee magaalo loo geeyo lacag taasaa jidadka lagu dhisay anagu waxaan tabanay markaa in aan bilowno cashuurtii gadista oo xaq loogu leeyahay dadka Soomaaliyeed ee baayac mushtariga xaq loogu leeyahay wax la kordhiyana maaha waxaan laga qaadin bawiyay halniga cashuur gadis laga qaado oo anta custom tahay oo soo fadhiisaa ka soo sheeg ma jirto cid laga qaado marka horta arrinta waxa la kordhiyay hal la joojiyo ya waa wax tashiin wax wanaagsan ma aha marka taas taa weeyaan talabaad cashuurta gadiddu waxay ku waajibtaa wixii la gadayo dhan hoteeladii baan tagnay nimayo shaaha la gadayo wax yar noo saarabaan nimayo sariiraha gadaysan noo saarabaan waxaad soo iibsanaysaa wax yar noo saarabaan waxa iyagu ma bixinayaan waa wax ninka sariirta ku seexanaya bixinayo $20 hadduu bixiyo oo dollar noo saaro dadka Soomaaliyeed way noolanayaan waan soo noqonayaan ya afartankii kambaniye ugu horreeyay Soomaaliyeed khayr Allah si way ogolaadeen dadka kooyay markaa inay markay xabadku wala yiminayaan inay sabti saaraan ee mudaharaadka sameynayaan inay dadka u turaan weeyaan dalkan inay u turaan ayaa loo baahan yahay waxay idinka warramayaa adduunyada keligeed in loo adduunyo kala nool wadana kala nool 200 oo dawladood oo ka mid nahay mid kan xabad waxa sideena u dhaqmay adduunka ma jiro ya oo yiraahdo anigu baa jeebkayga wax ugu sanayo cidna wax ugu siinay marka dawladda kaliya tabar xaraan ku biirin meesha iibina ama xaraashna ama kirayno wadanka haddana cashuur la bixin marka cashuurta gadista la yiraahdo ama sales tax wadanka inuu wuxuu Kenya boqolkiiba waa 16 waxaad iibinaysaa boqolkiiba 16 baa saarano bal hadda markaad Nairobi tagto shaah baad cabteen bahalka warqadda lagu keenay sales tax 16% baa ku qoran intaas dawladda meel loo dhigay annagu waxaan wax yar ka doonaynaa waxyaalaha weyn dadka ku xigay jaarkeena ee Kenya iyo Uganda boqolkiiba waa 18 inaga qaanuunkeenu waa boqolkiiba 15 labadaba waa ku hooseeya laakiin waxaan naga weydiinaynaa
ninka sanki nasiib waa inuu 15% kusinaya kuma siinaya marka dalkan Allah u maqan dalkan Allah u maqan waxaan damacnay anagu alaabta la soo dejinayo ee shaararka iyo spaghetti-ga waxaan jeedaa baastada iyo bariiska iyo dharka ku jiro ee hadhow bakaaraha la geyn doono ee la iibin doono intaan anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaanu halkaa kaga qaadno ee damacnay weliba oo ka qaadno شريعة توبة شيء كذا وحاد ويا سنتي بنك يعني أنا كذا إذا كذا سنتي business people كوالا شيء هذا وجه أريكا وكذا هذا النوع اللي ما في شيء يعني أريكا بلون هو واحد يرقع سوماليا وحيا وحسوق على سوق درينيا وزارة دي مالية عشرة أي كل شيء يعني ليش شيء وحكي جوا مجرى على كل دين مجرى إلى عشور بحنا إلى بحنا واسكجا إيمان هنا أريد أيضا إذا كده هاجن وين جوجيني هبكي اللي هو يقصعون لكن يقصي صعون كريم ما يصع أما تلفوا الحري أما واحد مش كسر أورين إذا المحور لقى قاضي الدين لقى قاضي ده واحد نقطة بيجوا كلام بس والله واحد نوع مركع دي لا إله هو كسوس كلا تضبط كسوس كلا يا ده كبزنس بيبل كشقة يدع الشركة أدي لا إله ولا صنعي سلاسل الصوص عطان ولا صنعي وإسكار فريسنا ولا فريسنا لا يو وهذا الدكتور كم واحد يجي هينيان اللي هو دلكو دي إذا كوت هذا الدولار أنت هسه دوري نديش هذا أشوف لكم بيجتو مناجي دونتو وحيجري من دولنا وحيا لا بحيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.